maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha August sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirada dalalka Jamhuuriyadda Tanzania mudane John Simbachawene iyo safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Angola mudane Sianga Kivuwela Samuel Abilio. ugu horeynba danjirayaasha cusub waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda soo gaarsiiyeen dhambaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Angola. waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhaweynta diiran ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka Soomaaliya, gaar ahaan iskaashiga dhaqaale, horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta. dhankiisa madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa ugu horeynba uga warbixiyay danjirayaasha cusub horumarka dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u dhiska dalka, dib u heshiisiinta, maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. waxaa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyaddu uu ugu hambaliyeeyay safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday, isagoo uga waramay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhaweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed. aad baad u mahadsantihiin.